السلام عليكم Soomaaliya waan ku soo qaldanay sheekadan marka ay dhacayso waa abaarihii 1976 inta aan dagaalka Itoobiya la galin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dawladdu qaybaheedu waxay markaa marayeen heerarkii ay ugu xoog badnaayeen diyaaradeed oo dalxiis ah oo dalalka Yurub laga leeyahay ayaa si fasax la'aan ah u soo gashay hawada Soomaaliya dhanka xigta Djibouti diyaaraddu waxay ahayd kuwa dadkii lacagta laha kireystaan waxaana soo kireystay gabar reer Yurub ah iyo ninkeeda laba malxiis oo la socday duuliyaha iyo kaaliyihiisa 6 qof oo kaliya ayaaba diyaaradda saarnaa dadka sida la sheegay waa dad hodan ah oo lacag lahaa dalxiis aroos bishii macaanina ku jiray waxayna u dhasheen dalalka Scandinavian-ka oo hadda Soomaali badan burburkii kadib qaxootinimo ku tageen dalal badan hadday soo mareen Djibouti-na safarta la soo gaartay waxay gabadhii caruusadda xiisaynaysay jasiiradaha bariga Afrika Tanzania iyo meelaha u dhow haddii taa la go'aansaday waa in hawada Soomaaliya oo geeska Afrika ku taala la maraa waxaa codsi fasax loo soo qortay waaxda maamulka hawada Soomaaliya taasoo codsigii diiday markii ay ku qanci weyday sababihii ay dulkaasi soo qorteen oo ahaa aroos dalxiis ah mar labaad ay codsigii soo celiyeen jawaabtuna diidma ayay noqotay waayo shaki badan ayaa jiray inay jawaasiis noqon karaan cadaymo wax qanciyana ma ay keenin oo dul isla weyn ayay ahaayeen maba soo dhigan meesha dawladda Afrikaan ah ayaa hadal idinku soo celin karta waa siduu waa hore ka sheegay abaan Ismaaciil Mare Allaha u naxariistay Rajab Koofil kibirkiisa markuu sawirayay gaskiisa ma galin wiil yar baa kaabaha ku qaban ragow kibirka waa lagu kufaakaa la ogaado gabadhii aruusadda ahayd waxaa lagu yiri meeshan aan iska dayno meelo kale aan u bedelano haddii kale safar wareeg ah oo dheer ayay nagu qaadanaysaa fasaxyadana inay daahaan way dhici kartaa hase yeeshee gabadhii way isooysay waxayna tiri inaan xeebaha badweynta Indiya soo ark mooyaan lagama yaabo inaan Yurub ku noqdo doolihii iyo diyaaradda lacag badan ayay qaateen oo hadal ma soo celin karaan duulihii ayaa laba gorday mooday gabadhii wuxuuna ku yiray okay waan baxaynaa hawada Soomaaliya ayaynu maraynaa diyaaradda aan wadano waa casri wayna yartahay isla markaasina aad ayay u dheeraysaa waan ka dhax dusaynaa ihiisa ayaa ku yiray Soomaaliya waa kuwa fasaxa inoo diiday haddaynu marno soo nama arki karaan wuxuu ugu jawaabay muddo yar 45 daqiiqo ah ayaan hawadooda kaga baxaynaa waa dawlad yar oo Afrikaan ah ma filayo inay qalab casri ah oo naga arki karaan heestaan haddayna arkaan inta isgaarsiinayaan ama xiriirkooda socda ayaan ka gudbaynaa diyaar garow bari subax dawlayhu warmoog buu ahaayo Soomaalida xog badan kama helin waxaa maankiisa ku soo dhicin dawladdan dad ahaan yar inay tahay waagaasi dawladaha farakutiriska Afrika ciidan ahaan ugu awood badan hadii dambe ayuu duulihii diyaaradda furaha ku wareejiyay Djibouti ayuuna ka soo kacay daqiiqada kadib hawada Soomaaliya ayuu soo galay markii raadaarkii casriga ah berbera ayaa diiradda ku qabtay waa la hadlay maxaa tihiin haba qaldan ayaad soo gasheen dib u noqda hase yeeshee duulihii ma jawaabin waa nin wax maagan dhowr jeer haddii lala hadlayna uuna dhagooleeyay soona dhaafay carigaasi wuxuu qorshihiisu ahaa tay iswaraysanayaan ayaan dusaya ayuu ku socdaa markii la arkay duuliyaha diyaaraddu inuu kas iyo maag u dhaga adeegayo waxna maagan yahay ayaa amar la bixiyay isla markiiba 2 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah oo nooca miiga loo yaqaan ayaa garoonkii militariga ee Beledoogle ka kacay labadii miig daqiiqado yar gudahooda waxay hareeraha ka mareen dayuuradii ajnabiga ahayd waxaana labadii miig waday saraakiil Soomaali ah inta la isla simay ayaa amar adag la siiyay nasorac halka aan ku tilmaamana ku deg haddii kale waa lagu tooganayaa waxa uu markaasi duulihii gartay inuu dalka Soomaaliya fudeedkiisa ku soo qaldamay hase yeeshee weli si fiican maankiisa uma gelin diyaarada miiga ayaa hareeraha kaaga jira waa la soo jiiraysiiyay waxaana lagu hagay inuu ku dego garoonka diyaaradaha ee Muqdisho duulihii miiga koobaad oo ah kabtan Soomaaliyeed ayaa ka horeeya wuxuuna u sheegay inuu dhulka taabanayo kadibna uu ka sii kacayo isaguna uu meesha ku dego waayo ciidamo kale ayaa dhulka ugu diyaarsan oo sugaya miigii labaadna way ka dambaysaa duulihii Soomaaliya oo ahaa sarkaal xariif ah intuu baarish raaraciyay oo dhulka si fudud u taabtay ayuu ka sii booday ilbirqsi isu dhow ayay labadii miig garoonka dhanka afisiyoono korkiisa u dhaafeen iyagoo laba dhinac u kala baxay welina isha ku haya diyaaraddii la soo qabtay inay si nabad ah u degtay aadana waa yaabe waxaad moodaa duulihii diyaaradda yari
inuu weli isdhiibin, isagana intuu cagta dhigay ayuu isla markiiba kor u kacay oo dhanka badda u xawaareeyey, isagoo malaha isleh xagga badda ayaa xaduudda dhaqsi ugu bixi kartaa, laakiinse waa hubanti inuu xisaab qaldan isku dhufsaday. Soomaalina warkeeda ku yaraa. Kiiba labadii miig ayaa ku soo jiireeyey, iyadoo ay u caddaatay dayuuraddan iyo duuliyaheeda inay darsan fiican oo kii hore mid ka culus u baahan yihiin, waxaana la go'aansaday in diyaaraddan iyo duuliyaheeda cashar fiican loo dhigo. Duuliyihii miigii koowaad ayaa diyaaraddii ajnabiga ahayd dhinaceeda intuu ku soo dhowaaday, isagoonan la hadlin ayuu hal gantaal ku sii daayey, wuxuuna ka mariyey qaarka hore ee diyaaradda meel wax yar u jirta. Diyaaraddii inta ruxuntay ayaa xitaa saacadaheeda isku dhex yaaceen, gaaladii saarneedna mantaq iyo qayle ayay ku waasheen. Markaasuu duuliyihii miirsaday, degdeg ayaan u degaynaa, biliis aywilaan, oo micnaheedu yahay fadlan hana tooganin, waan degaynaa. Markiiba garoonkii ayuu halhaleel ugu soo noqday oo si edebsanna ugu soo degay. Garoonka ayaana ciidamo ku sugayay diyaaraddii, dhammaantoodana xabsiga ayaa loo taxaabay. Ciidamada nabadgelyada ayaana waraysiyo la sameeyey, waxaana loo soo saaray codsiyadii ay soo gudbiyeen iyo jawaabihii laga bixiyey, digniintii raadaarkii berbera iyo buulo berde, dhammaan markhaatiyadii. Kadibna si degdeg ah ayaa maxkamadda loogu gudbiyey. Ma ba'in karin, wuxuu duuliyihii si cad ah u qirtay inuu u bareeray inuu hawada soo galo. Ma aanan islahayn buu yidhi, dowladdan yarta ee Afrikaanta ah ayaa qalabkaasi casriga ah haysata ama idinsoo qaban karta daqiiqado yar gudahooda, laakiin aad iyo aad ayaynu Soomaali ugu soo qaldannay, sidaasi ma aanan moodaynin, ayuu yidhi duuliyihii. Gabadhii iyadana waxay tidhi, duuliyaashiina soo dejiyey ee diyaaradaha dagaalka waday waxaan u malaynayaa inay Ruush ahaayeen, ma lay tusi karaa? Duulayaashii oo labiskooda xoogga dalka ku labisan ayaa la soo hor istaajiyey, waxayna u caddaatay inay Soomaali ahaayeen. Caruusaddii waxay tidhi, ma dhunkan karaa duuliyaha Soomaaliga ah, maxaa yeelay wuuna soo badbaadiyey, si degganna wuu noola dhaqmay. Waxaa la yidhi maya. Waxay tidhi, waan u mahad celinayaa. Maxkamaddu waxay ku xukuntay xarig iyo ganaax duuliyaha iyo shirkaddiisa, qarashkii diyaaradaha, qiimihii gantaalka, iyo dhammaan qarashaadkii kale, iyo inay meeshay ka yimaadeen ku noqdaan. Xabsigana inay gadan karaan ayaa markii dambe loogu beddelay lacag aad u fara badan ayaana laga qaaday. duulayaasha miyiga waday ma ahayn reer hebel sida maanta wax lagu qiimeeyo, waayo waagaasi ma jirin 4.5 ama 4.5 qiimaha iyo sharafta waxay ahayd Soomaalinimo kaliya. Waxaan ka cudur daaranayaa inta qabta in qabyaaladu qaran ka qurux badan tahay. waa walaalkeen Cadnaan Imaasho oo idin leh insha Allah muuqaalka xiga ayaa noo balan ah.